sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo fursadii ugu dambeeyay siiyay jabhadda TPLF waxay la joogaa Ilka Case oo ah falanqeeyaha barnaamijka. Ilka Case soo dhaw marka hore waxaad ku hormartaa halka ay wax kala marayaan iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka dalka Itoobiya. وتأييد ما سنتنا أحمد ديق داوداش وان سلامنا تاريخ وصدح لباتنك نوفمبر سنة كلبادة كوني لباتنك دقالك دلك إثيوبيا كسعودة وحو قالي مالنتي لباتنات أفرتي بيشان ويصاب بالوضي مددي مركي هور دولد أي كل فكري سي أي قرشين سي إنه يكسر أفجرتو مدة كبدن أيوقات تطبضن وكلا حاجة تحليلية رمها إثيوبيا يولفسكو مركي هور قبي إن دقالك كان ومددس أدى أوقاته لباتنك بريئة إن مدكير وقادن كرو لكن وقت دير بهذا قاتل واتم مريا إلى هذا نسان موقته وقت الغصو أفجر كرو دولد يكسو أفجر كرو تدقال كاسيان وقول ما عندهم ما جرتو waxaa aragtida mid ka duwan dadka qaar ay qabeen oo ahayd in dagaalkan uu sababi karo waxa weeye barakac iyo dagaal sukayo Itoobiya ka dhaca iyo waxa weeye burbur oo uu noqon doono dagaal daba dheeraada balse uusan noqon doonin dagaal muddo cayiman waqti kooban lagu soo afjaro kuwa kale ayagana aragti mid ka duwan bay qabaan arinta ah dagaal sukayo oo waxay leeyihiin dagaal sukayo marka la Soomaaliya kale ka dhacay oo dad isku diin ah oo isku luqad ah oo isku dhaqan ah iyo dhaxmaray لكن إثيوبيا ما كلا ده دجال سكاي ما نكون كرت مدامة ضدك أيهين ضد مارتي قومية ذا كلا دوانها أو كوا بدن إسكو دين أنا هين أو إسكو رقن أنا هين أو مارتي إسكو أذكر الدوان لكن وحيابا كر كم ذي أو مامور كأي نظام كونه وجرو بس أيهين قومية ذا كلا دوان وديمة كلا دوان يرقن كلا دوان يمارت اللوقة ذا كلا دوان له أما يستا سيدا هريبا وشجني دجالكو مالنتي لبعتناد ما تجلي شلي رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد محلي فيدكي وحصول صاري قرال دير ورثحفيد وهذا دجالك iyo halka uu xmaray رئيس وزراء إثيوبيا wuxuu sheegay in dagaalkan hadda uu galay wajigii saddexaad oo wajigii koobaad iyo wajigii labaad ay dhamaadeen haatana wajigii saddexaad uu galay wajigii saddexaadna uu yahay kii ugu dambeeyay ee lagu soo afjarayo kooxda TPLF sida isaga uu sheegay wuxuu sheegay in deegaano badan iyo magaalooyin badan oo muhiim ah TPLF Tigreega laga qabsaday wuxuu siiyay fursadii ugu dambeysay sida uu isagu sheegay warsaxaafeedku sheegay oo ah 72 saacadood aduu noqonay 3 maalmood iyo 3 habeen in waxa weeye ciidanka TPLF ay isu soo dhiibaan waa fursadii ugu dambeysay hore waxaan ogeyn in 3 bari la siiyay 3dii barina waxa weeye aysan jirin TPLF wax ka jawaabay kadibna hawlgal lagu magac daray xiida usiibka TPLF la qaaday hawlgalkiina hadda uu reserve sheegay shalay inuu soo gogoobay saddexaad hadda la qaadayo laakiin wali fursad uu siiyay TPLF 72 saacadood ay ciidanka dawladda ama kuwa militariga dagaalka ay kula jiraan isku soo dhiibaan si maarta dagaalkan loo soo afjaro oo dadkan barakacaya waxa weeye dadkan raydka dhibaato ay soo gaarayso meesha waxa weeye ay uga baxdo wuxuu sheegay in kooxdan ay aad u burburiyeen meelo fara badan oo kamid ah goobihii dagaalku uu ka dhacay wuxuu sheegay in ay ku mashquulsan yihiin dib u dhiska iyo dib u dayactirka goobo badan oo burbur ay gaarsiiyeen TPLF intii uu dagaalku socday hadda wixii ku soo haray TPLF gacantoodana ay tahay caasimadda Maqale oo ay dhufayse ka qoteen maartay hoteeladii iyo kaniisadihii iyo goobihii xabaalaha dadka lagu xabaalay waxa hadda ay sugaan kaliyana ay tahay fursadda inay ka faa'iideystaan oo ay soo dhiibaan ama maartay godka iyo meelaha ay dhufayska kaga jiraan loogu tago halkaana lagu laayo waxa weeye wuxuu sheegay kooxdan ay tahay nafl caari ayna sameynayaan burbur fara badan wuxuu ugu baaqay shacabka magaalada Maqale maadaama sida uu sheegay Maqale kaliya ay gacantooda hadda TPLF ku soo hadhay in waxa weeye bal aad ay u taxadaraan oo ay maartay kooxdan iska fogeeyaan sidoo kale wuxuu sheegay in hawlgalkan laga taxadari doono magaaladan maadaama ay ku sugan yihiin dad lagu qiyaasay ilaa 50,000 oo maartay ruux oo waxa weeye magaalada ku nool oo uu sheegay in ay aad uga taxadarayaan inaysan wax dhibaato ah soo gaarin inta maartay dawladda ay ku guda jirto hawlgalka gacanta lagu soo dhigayo TPLF iyo qabsashada magaalada Maqale oo sida ay dawladdu sheegtay meeshii ugu dambeysay dhinaca kale Ridwaan Xuseen oo dawladda u hadlay waxa uu sheegay in ciidamadii ka imanaya dhanka alaamaata ee magaalada Maqale ku sii jeeday ay hakiyeen burburka ama duminta wadooyinka iyo TPLF duminta ay ku sameeyeen buundooyinkii waaweynaa ee loo aadayay ama galayay magaalada Maqale
taana ay ciidamadu ku hakadeen haddase wixii ka dambeeya ay ciidamadu dhankaas u ruqaansanayaan oo ay xagga maqale ay aadayaan mid kale waxaa jira afayeen lagu magacaabo afayeen ciidamada militariga u hadlay lagu magacaabo Colonel Dejane wuxuu sheegay hata inay kulaaxayaan magaalada maqale ee caasimadda maamulka Tigreega wuxuu sheegay dagaalkan inuu ka duwanaan doono oo uu ka cuslaan doono kii hore maadaama TPLF ay awoodoodii isugu keeneen magaalada waxa weeye maqale si ay u difaacdaan lafahoodana ay u difaacaan laakiin wuxuu sheegay in hub culus oo sida kaarayaasha lagu dagaalami doono hawlgalkan ugu dambeeya wajiga saddexaadna uu ka cuslaan doono kii hore markaan ku laabano ra'iisul wasaaraha hadalkiisa ah 22 saacood in la siiyo TPLF inay isku soo dhiibaan dad badan baa dhaliilay oo ka soo horjeestay sida axmaarada oo kale oo ah dadka ugu badan ee Tigreega ay hayaan kana cabsi qabaadi Tigreega waxa weeye aan la soo afjarin in waxa weeye caqabad iyaga ku noqon karto markii hore deegaanada ay isku haysteen waxay u arkaan axmaaradu fursad nimankan ay mar kale isku aabuli karaan ra'iisul wasaaraha inuu 22 saacood siiyo in TPLF ay tahay fursad ay mar kale isku abaabuli karaan oo ciidamadii kula dagaalami karaan oo ay isku diyaarin karaan oo hadii xitaa taageero ay meel ka helayeen ay ka heli karaan sadarada axmaaradu waxay qabtaa in waxa weeye aan wax fursadaha la siinin TPLF hawlgalkuna uu socdo lana sii xoojiyo si meesha looga saaro axmaaradaas ay qabtaa dad kale iyagana waxaa jira siyaasiyiinaha oo falanqeeya arrimaha Itoobiya oo aad maartay ula socda hawsha oo iyaguna waxa weeye wasaaraha go'aanka uu qaatay fursada 22 saacadood ah u arka inay tahay mid uusan ka fiirsanin oo khalad ah oo nimankan ay isku abaabuli karaan oo ahayd talaabadaas in uusan qaadin si kastaba iyada oo 42 saacadood 22 saacadood la siiyay TPLF ciidankooda inay isku soo dhiibaan haddana weli waxa weeye hawlgalka iyo dagaalku waa uu socdaa oo muusan joogsanin marka 22 saacadood la siiyay macnaheedu ma ahan in waxa weeye dagaalku joogso dagaalku wuu socdaa laakiin fursad wali waxay haystaan inay isku soo dhiibi karaan taas weeye macnaheedu dhinaca kale madaxweynaha maamulka Tigreega Debretsion Gebremichael ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta caalamiga gaar ahaan wakaalada wararka Reuters wuxuu sheegay dhanka koonfurta in ay muddo 7 ay ka dagaalamayeen oo aysan jirin meel maartay laga qabsaday oo wali dagaalkii ay ku jiraan wuxuu sheegay in dhanka ciidamada dawladda markii la eego ay mar walba gurmad iyo ciidamo hor leh cusub ay u imaanayaan laakiin aysan jirin wax ay ku soo kordhiyeen arintaasi ma uusan shaacinin wax meelaha laga qabsaday waxa moodaa marka waxoogaa ayagu inay isdifaac ku jiraan oo aysan inaba ha yaraatee shaacininin meelo iyo deegaano laga qabsaday sida dawladda ay sheegayso afayeen soo kale u hadlay TPLF wuxuu sheegay in guulo waaweyn ay gaareen intii ay dagaalka maartay ku jireen ilaa dhowr jiho oo weer laga soo qaaday 3 jiho weerarka laga soo qaaday in ay guulo waaweyn ay ka gaareen ayna wali sii dagaalamayaan madaxweynaha TPLF isaguna wuxuu sheegay inaysan isdhiibaynin arintan waxa weeye ay tahay wax aan maartay macquul ahayn oo aan marnaba ha yaraatee aysan isdhiibaynin dagaalkana ay wada doonaan ilaa waxa weeye ay guush ay ka gaaraan iyaguna guush ay leeyihiin marka laga reebo sheegashada labada dhinac ee ku aadan mid walba inuu guul sheeganayo ma jirto ilaa hadda ila madax banaan oo rasmi ah oo xaqiijin karta xaqiiqada rasmiga ah ee sheegashadooda iyo waxa ka jira sababtu waxa weeye khadka inta maartay telefoonada iyo maartay khadka internetka iyo telefoonadii caadiga ah wicitaanka wax walba waa uu go'ay taa marka waxay ka dhigtay in ay aad u adkaato in xog rasmi ah laga helo meelaha lagu dagaalamayo iyo cidda guusha ama maartay ugu gacan sareysa goobaha lagu dagaalamayo marka laga soo tago sheegashada labada dhinac ay muujinayaan ama ay sheeganayaan ay mid walba maartay inuu guul uu gaaray dawladda dhinaceeda markii la eego iyadu waxa ay sheegaysaa in ay gaartay guulo waaweyn oo magaalooyin waaweyn ay ka qabsatay oo magaalooyin qadiimi ah sida maartay Aksum oo kale oo magaalo maartay aad iyo aad qadiimi u ah oo waxa weeye taariikhi ah oo waxyaabo badan oo meelo goobo badan oo taariikhi ah leh oo loo dalxiis tago oo dadku maartay ay tagaan oo ay soo daawadaan oo goobaha taariikhiga la soo eego waxa jira marka kaabayaasha dhaqaalaha oo burbur uu soo gaaray sida maartay wadooyinkii laamiga sida garoomadii diyaaradaha gobolkan oo markii hore la sheegay inuu sabool ahaa haddana burbur aad u xoogan ayaa soo gaaray goobihii waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha dakhliga uu ka soo gali jiray maamulkaasi canshuurta iyo maartay lacagaha laga heli jiray
wax muddo marka xaaladdu inay weli ay adag tahay adi ilaa toddobaadkan dhammaadkiisa waa la eegi doonaa sida muuqata bal natiijada iyo dagaalkan waxa uu ku dambeyn doono dowladda haddii sheegashadeeda la raaco toddobaadkan dhammaadkiisa ayaa la sugayaa in bal waxaa weeye ay run noqotay in kale hadallada dowladda kasoo baxaya ee ah in magaaladii caasimadda ahayd ee maqale ay kulaaxayso in deegaano fara badan ay Tigray ka qabsadeen in waxa weeye ay wajigan ugu dambeeya ee dagaalka goordhow soo gabagabayn doono warka dowladda inuu wax ka jiro in kale waxa la ogaan doono toddobaadkan soo socda insha Allah ama toddobaadkan bilowga maanta isniinaha dabayaaqadiisa ilaa jimcaha ayaa la sugaya TPLF iyagana gulahooda lafskooda waxa weeye maalmaha soo socda la ogaan doona bal waxa maartay uu ku dambeeyo laakiin dagaalku wali waa uu culus yahay dhinaca kale saaka subaxii hore gantaalo ilaa 3 xabah ayay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Axmaarada ee Baxridaar ay ku garaaceen nimankan TPLF waa markii saddexaad oo muddo aan filayo in ay maartay 12 bari gudaheeda ay garaacaan oo gantaalo ay ku garaacaan caasimadda Baxridaar ee Tigray gantaaladii ugu dambeeyay markii labaad ee la garaaco 2 bari ka hor ahayd taliyaha ciidamada cirka Itoobiya wuxuu sheegay in gudad ay qoteen dhanka xuduudda Axmaarada ay Tigray la wadaagaan halkaan ay ahayd meeshii ay ka soo tuurayeen isla markaana goobihii ay duqeeyeen oo aysan jirin fursad kale iyo goob kale oo gantaalo ay ka soo tuuraan tan marka calaamad su'aal badalnaysa hadalkii taliyaha ciidamada cirka ee dowladda federaalka iyo maartay saxaanshihiisa iyo sida loo kalsoonaan karo ay calaamad su'aal ay maartay saaraysa marka saaka duqeymaha waxay u geysteen garoonka diyaaradaha dad goob joogayaalaha oo warbaahinta la hadla waxay sheegeen in ay arkayeen dabdad maartay gawaarida iyo dadka dabdamiska oo ku sii ordaya ama ku sii qulqulaya goobihii ay gantaalada ku dhaceen laakiin ilaa hadda ma jirto khasaaro rasmi ah oo la xaqiijin karo wali waxa laga warsugayaa warbaahinta iyo maartay mas'uuliyiinta warfaafinta ismaamulka Axmaarada inay ka hadlaan khasaaraha rasmiga labadii jeer ee hore ee la duqeeyay Baxridaar iyo Gondar wax khasaaro rasmi ah oo ay sheegeen ma jirin laakiin maadaama lagu jiro xilli dagaal in aad maartay sheegato waxa weeye dhib ku soo gaaray oo cadawga ay ku geysteen ceeb aad ku noqonaysa marka xilliyada dagaalka waxyaabaha ku soo gaaray waa inaad qarsata marka saad moodaa in xogaa iyadoo la fiirinayo dagaalka maartay u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maartay Tigrayga Axmaaradu inta qayb libaax ay ka tahay in xogaa ay qaranayaan wax kasto dhibaato soo gaadha iyo gantaaladaasi maartay saameynta iyo maartay waxyaabaha ka dhashay khasaaraha xaaladdu marka saas weeye markii saddexaad bay noqonaysaa Baxridaar caasimadda Axmaarada la duqeeyo wali wax war oo rasmi ah ka soo baxay ma jiro marka laga reebo goob joogayaal xaqiijiyay dhawaqa iyo maartay hugunka iyo waxa weeye sawaxanka waxa weeye madaafiicaas lagu soo garay Baxridaar iyo dabdamiska waarta ku sii yaacayay goobaha ay ku dhaceen laakiin hadda wax khasaaro rasmi ah oo ka dhashay oo la xaqiijin karo oo maamulka Axmaarada iyo dowladda federaalka iyo laamaha ammaanku ay ka hadleen midna ma jirto xaalad marka way adag tahay dagaalku halkaas uu maraya ilaa isbuucan dabayaaqadiisa waxaad moodaa in bal la sugi doono cidda ay wax way guushu ay ku raacday maadaama dowladuna ay sheegtay in wajigii ugu dambeeyay TPLF meesha looga saari lahaa la qaaday maqalana oo caasimadii ahna ay kula hayso marka waxa la ogaan doonaa bal dowladda hadalkeeda waxa ka jira inuu run noqdo iyo in kala guulaha sheeganayso iyo TPLF sidoo kale guulaha sheeganayaan waxa ka jiri doona iyadana waa la ogaan doonaa iyo cid ku gacan sareysa dagaalkan maalmaha soo socda ayaa la ogaan doonaa waxa weeye xaqiiqada arintaasi iyo guulaha ay kala sheeganayaan waa hagaag daawadayaal aad ayuu u mahadsan yahay wariye ilka case qaybtan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaa dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu